The Gaza famine is the world's famine. It is a famine. The Gaza famine. wacan oo wanaagsan walaalayaal waxaan yara kor istaagi doonaa mowduuc ka duwan mawaadiicdii ama topics-kii aad nooga barateen kaas oo waxa shakhsiyan aniga igu kalifay uu yahay damiirkayga oo runtii xamili waayay in aan ka aamuso maadaama arrimaha caalamka si dhow iyo si fogba muhiim ay tahay in loola socdo ayaa waxaa jirtay dhacdo maalin ka hor ka dhacday dalka Holland ama Dutch-ka waxaad u taqaanaan taasoo waxa ku kalifay aysan ahayn islaam jacayl in aysan ahayn islaamnimo in aysan ahayn waxa la yiraahdo carab jacayl aysan ahayn qabiil jacayl iyo dad gaar jacayl aysan ahayn balse waxa dhaqaajiyay ay tahay damiirkoodii oo xamili waayay waxa soconaya waxa dhacaya waxa laga yaabaa markaan aad isweydiisaan maxay tahay arrinkaasi wuxuu yahay wax kale ma aha sida muuqaalka idinka muuqataba dalka Holland ayaa si wadar ah 8 xubin oo ka tirsan xubinada ugu sareeya dalka Holland ayaa si wada jir ah hal mar xilkii isaga casilay taasoo sabab ay u ahayd wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Holland oo isaguna maalin ka hor xilka iska casilay waxa laga yaabaa markaan aad isweydiisaan sababtu maxay tahay wax kale ma aha wuxuu u dulqaadan waayay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Holland waxa dalkiisu ay sameynayaan ee la xiriira arrinka ka socda dalka Falastiin gaar ahaan marinka Gaza taasoo aad dhammaantiin ka wada warhaysaan xaaladda ka jirta gaajada ka jirta gumaadka ka jira tacadiga ka jira dadka gaajada u la'anaya ee runtii u dhaqaaqaysa aysan jirin arrinkaas ayaa lagu tilmaamay inuu sabab u ahaa in wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Holland uu filayay in dalkiisu uu tilaabo ka qaadi doono waxa Israa'iil ay ka sameynayso marinka Gaza kadibna dalkiisii markii tilaabo uu qaadi waayay in uu sheegay in damiirkiisu uusan xamilaynin inuu xilka dalkiisa u sii hayo kadibna ay keentay 8 xubin oo kale oo kuwa dalka ugu sareeya kamid ah in ay hal mar si wadar ah inay xilkii isaga casilaan arrinka marka aan u socdo ee aan rabno dhammaanteen inaan ku wada baraarugnaa wuxuu yahay walaalayaal marinka Gaza markaan ka hadlayno afarta dhinac ama afarta jiho marka laga reebo ciidan dhibka u geysanaysa waxa dhinac kasta ka xiga carab qaarkood sheegta inay 100% muslimiin ay yihiin bal waxa intaas sii dheer in dalalkaas kamid ah xuduud ay leeyihiin qofka Falastiiniga ahi isagoo lugaynaya oo gaari aana u baahan uu ka bixi karo cidda sidoo kale rabta inay u gargaarto iyadoona gaari iyo diyaarad iyo tareen aan u baahan iyadoo lugaynaysa ay u gali karto waa dalka Masar waa dalka Urdun iyo sidoo kale dalka Suuriya Lubnaanna hadaa rabtid ku dar laakiin afarta jihoodba dalal noocaas ah ayaa ka jira waxyaalaha la yaab kale ee la rabo qof kastoo damiir leh inuu fahmaa waxay tahay dadkaas gaajada iyo dhibaatada ku jira walaalayaal cuntooyinkii loo waday gargaarkii bini'aadanimo loo waday dhaqaatiirtii rabtay in ay naftooda u huraan si masaakiinta caruurta iyo hooyooyinka uurka leh ee halka gaajadu ay ku dilaysay ay u gargaaraan si mutadawacnimo ah raba in ay u gargaaraan cuntadii iyo qalabkii iyo kulli iyo daawooyinkii raashinkiina ay yeelaan meesha in dalka xanibay uu yahay dal muslimiin sheegta 100% inta ugu badan way jiraan dad muxuu ahaaye yuhuud ah way jiraan dad kristaan ah oo masaari ah way jiraan cidina iskama inta tiri karto laakiin majority-ga ama al-aghlabiyya saaxiqa tirada ugu badan waa muslimiin iyadoo ay tahay ayaa dalkaasi wuxuu hortaagan yahay in masaakiinta la'aanaysa ay cuntooyinkii daawooyinka iyo raashinkii meesha yaalay iyo nooc kasta u baahan yihiin inay galaan waxa su'aal ah oo la raba walaalayaal qof kasto damiir leh inuu ku baraarugaa waxay tahay muxuu yahay waxa dawladaha islaamka sheegta dhaqaajin kari waayay shucuubtooda iyo madaxdooda ee dhaqaajiyay nin islaam aan ahayn nin muslim aan ahayn nin carab aan ahayn wuxuu yahay isagoo hal maslaxa ama hal dan ah aysan ugu jirin inuu marinka Gaza uu xil isaga casilo in uu dad ay isaga hor yimaadaan in uu mansabkiisa iyo jagadiisa ku waayo billahi calaykum su'aasha isweydiiye si kooban marka aynu marka u tilmaano walaalayaal waxa ku riixaya waxa weeye waa damiirka waa insaaniyadii laga waayay waxa culumada ah ee Sacuudiga iyo Masar iyo Urdun fadhiya ayaa dhaqaajiyay nimankaas muxuu ahaay reer galbeedka ah ama Yurubiyaanka ah
waxaa laga waayay madaxdii carabta ayaa dhaqaajiyey wixii laga waayay shucuubtii kale ayaa nimankaas yurubiyaanka ah ee laga yaabo Israa'iil inay isaga dhow yihiin kuwan kale carabta sheegaya inay kaga karti badan yihiin ayaa dhaqaajiyey taasa waxay u baahan tahay in qof kasto marka damiir leh ereyga islaam inagoonan isticmaalin damiir leh insaaniyad leh la raba xaaladaha qaar markay dhacayaan in ay dhaqaajiyaan in ay gilgilaan in ay noqdaan halbeega oo isticmaalayo waxa uu yahay ee saxda ah inuu noqdo taasa waxaan jeclaystay inaan walaalayaal idin xasuusiyo anoo aaminsan badankiin inaad fahansan tihiin badankiin inaad ka warhaysaan waxaa kaloo laga yaabaa inaad is weydiisaan maxaan u qaban karnaa waxaan xasuustaa nin lawyer ahaa oo 2 beri ka hor isaguna dhintay in sakaraadka markii uu hayay uu xanuunsanaa waxyaalihii uu dadka ka codsanayay ay ka mid ahayd waliba ugu badnaa inay ahayd inay u duceeyaan hadalladii uu isticmaalay ee aan ka xasuusto run ahaantii sida gaarka ahna ii soo jiitay ayaa waxaa ka mid ahaa inuu yidhi waxaan aaminsanahay awoodda ducadu ay leedahay ninka gaalka ah wuxuu aaminsan yahay hadduuba ilaaha jiro in ducada dadka ay u soo ducaynayaan in loo aqbalayo famaa baaluka adigoo muslim ah waxa kaliya marka iyagana wax weyn u qabanaysa adigana wax culus aan kugu ahayn baa waxay tahay horta kow inaad ka warhaysido qalbigaaga marnaba aysan ka bixin inay jiraan shacab Falastiin la yiraahdo gaar ahaan marinka Gaza ku nool oo maanta 130,000 oo caruur ah haddii gaajaysiintaas Israa'iil ay ku wada marinka Gaza ay sii socoto in 130,000 oo caruur ah ay dhiman doonaan maxay u dhiman doonaan gaajo kaliya iska daa hooyooyinka uurka leh ee 60,000 ee hooyo lagu tilmaamay ee macaluusha iyo gaajadu ay ku keeni karto inay ilmuhu ka soo daataan qaarkood ay la sooxayaan oo ay la dhacayaan gaajada haysa awgeed waxa wax u taraya marka walaalayaal inaad marka hore tamaanka ka haysato noocaas ay jiraan oo dalal carab ah dhexdooda ku nool oo dal Israa'iil la yiraahdo uu saa u galayo caalamka dhan uu ku daawanayo in maankaaga aysan ka bixin oo cid kasto adigu aad fariinta gaarsiin kartidna aad fariinta gaarsiisid waa midda koowaad midda labaadna waxay tahay in aad u ducaysid shakhsiyan adigan dhageysanayaan kula hadlayaaye cid kale aad ku hadlaynayn inaad u ducaysid ilaahayna aad uga baridid in uu ilaahay dhibaatada ka saaro labada waxyaalood ayaa muhiim ah inaad aamintid inaad sameyn kartid wax weyn iyo kharash iyo lacag iyo isdhibidna ana kaaga baahnayn labadaasna ay yihiin waxa kugu riixi kara oo yahay hal shay inaad damiir leedahay kulligiin waxaan hubaa inaad wada Facebook leedihiin inaad wada leedihiin WhatsApp inaad wada leedihiin YouTube in aad kaliya fariintaada kaliya ka inta soo dhigtay aad tiraahdid maanta marinka Gaza shacabka jooga ilaahay aan u barino inuu dhibaatada ka saaro waxa laga yaabaa adiga wax yar inay kula tahay laakiin iyaga wax weyn bay uga dhigan tahay fariintaas ayaan jeclaystay inaad ila qaadataan ila dhaqaajisaan caalamka intiisa kale ee aad gaari kartaana aad gaarsiisaan aad baad noo mahadsantihiin